ururka dhalinyarada horumarinta ee baaq ayaa tartan kubadda cagta ugu qabtay kooxaha heerka koobaad ee degmada Balli-Gubadle. Tartankan ayaa ulajeedkiisu daarnaa sidii loo dhiirigelin lahaa dhalinyarada. Ugu hore xubin ka mid ah ururka baaq oo halkaasi ka hadlay ayaa ka faalooday ulajeedka tartankan. koobkeeni loo bixiyay koobka dhiirigelinta dhalinyarada waxa mahad leh horta ilaaha halkan isku keenay koobkaana si amniya inuu dhameeyay waxa mahad leh maayarkeena Cabdi Iimaan Jaamac iyo waliba tan garsoorihii sida xaqaa u dhexdhexaadinayay waxa hambalyo kale leh ururka dhalinyarada iyo horumarinta arrimaha bulshada ee baaq Youth Development Organization oo hawsha soo qaban qaabisay oo intaas oo dhalinyaradooda gobolka ka jirta si heer iyo waliba tan gobolada kale si ay ula tartamaan. Sidoo kale halkaasi waxa ka hadlay maayarka degmada Balli-Gubadle oo dhamaanba u mahad celiyay kooxdii ku guuleysatay iyo ururka baaq. maanta oo ay ciyaariyeen laba kooxood kooxda Himilo iyo kooxda Arsenal oo ay koobkii ku guuleysteen Himilo koobkaas oo ay dhigayeen ururka baaq organization kuwaas oo u sameeyay dhalinyarada inay dhiirigelin sameeyaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa maadaama aad badiseen kuwa kale maalinta duma badan doonaan waxaan ku rajooynay inaan sanadka qodada ciyaarta gobolka ciyaar doonta ina ka mid noqoto. Gabagabadii tartankan oo ahaa finalka ayaa maayarka degmada Balli-Gubadle ku guddoonsiiyay kooxdii ku guuleysatay hanashada koobka. Cabdiraxmaan Samriye TV-ga caalamiga Home Cable TV degmada Balli-Gubadle ee xarunta gobolka Hawd.